السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال كل معنا وهاجسن ميل بانجا دهانيسان كسر هذا برنامج كسويالك نولشة أو برنامج تضوادلا إسلام مركز نات كدياتان تضواد كيبه مانتو كله مقبية مقدشة كيبل تي في برنامج كنا مانتا وحام برتيوه قدوميها أوركا سمفلك مدنمو مستر علي حسن محمد أيا داوديال برنامج كمرتيوه oo muddada 30 daqiiqo hawada ku jirna daawadayaal aan weydiin doonaa su'aalo ku saabsan waxqabadka ururka iyo su'aalo kale oo aan filayo in ay idinka dhex guuxayaan maadaama ururkan uu yahay urur samafal isla markaasna shaqooyin kala duwan bulshadu qabta waatahay waxaan soo dhaweynayaa gudoomiyaha ururka gudoomiye ku soo dhaw su'aalka nolosha iyo barnaamijka aan filayo inuu yahay barnaamij runtii dad badan ay wada sugayaan maadaama tahay gudoomiyaha ururka samafalka iyo midnimo soo dhow ما شاء الله أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان ودي سلام يا أنت كنت حن جنال كان وحاسدو كلام هاد جارة عن أعلن يا جنال كمقدشو كيبل يا ولالكي محمد عبد الله وما شاء الله ما أنت يعني بوقشوا حفيزكي يقول ماذا oo raba in maartay sida qaabkan yani u shaqeeyno inuu bulshada u bandhigo marka aad baad ugu mahadsantihiin sida wacan aad maartay insha Allah su'aalihii aad igu soo weydiisay waan u mahad celinayaa Muqdisho Cable boqolkiiba boqol waxay ka shaqeysaa horumarka bulshada ka shaqeysaa dadka aan maartay hadalkooda ama codkooda meel dheer oo san gaarin ay gaarsiisaa marka insha Allah aad baad u mahadsantihiin baan leeyahay insha Allah waatahay gudoomiye anaguna waqtigaaga waan kaaga mahad celinaynaa waxaad gudoomiye ka tahay ururka samafalka ee midnimo bal ururkan anigii daawadayaashana bar ururkan waa urur nuucaya ما شاء الله ururkan waa urur samafal ah waaye ururka samafalka midnimo magaciisana sidaas baa la yiri kadib markii aan maxalli jiray aan isla falanqeynay يعني erey walba wuxuu leeyahay turxan bixis buu leeyahay يعني midnimo marka la yiraahdo يعني kama socno oo يعني waa urur qabiileed ma ahan waa urur يعني Soomaaliyo idil يعني ay ka qayb qaadan karto una diyaara inuu wax u qabto يعني dadkeena dhibaataysan dhinac walba ama qolo walba ay yihiin Soomaalinimadaasi ayaan ugu damqanaa marka ururkaasi sidaas ayaa maartay loogu bixiyay ururka samafalka midnimo waxyaabaha uu qabtana insha Allah kulli waan soo waxyaabaha uu qabto dib ayaan kaga imaan doonaa magacan ururka samafalka midnimo maxaad ku doortay maadaama magacyo kala duwan ay jiraan magaca maxaa ku qaadaysaa ما شاء الله هذا ما سنتها محمد ururkan samafalka ee midnimo يعني magaca siisa balaas kama qaato oo waxa dhacaysa maarta ururo kale oo adiga macnaha يعني magacaas oo kale leh marka in badan ayaa maarta laga shuureeyay marka midnimo marka la yiraahdo waa ittixaad yani markii wax ay isku yimaadaan al-ittixaad quwwa arabtu waxay yiraahdaan al-ittixaad quwwa markii yani la midoobo waxa imaanaya power awooda imaanayo marka saas darteedan maartay magaca aan u qaadanay in uu yahay magac awood badan oo insha Allah aan rajeynayno inuu maartay yani saameyn badan oo maartay oo yeesho insha Allah waxa marka goormeen asaas ururkan waxaa la aasay 14kii ayaa la aasaasay 2014kii ayaa la aasaasay waxaana lagu aasaasay dad aad maartay u tiro yar dhalinyaro oo maxaa la jiray intooda badan maartay oo muruqmaal ah ama xoogood ku shaqeysata ah yani markii aan aragnay baahiyaad badan ayaa macnaha maartay aan aasaasnay ururkan 2014kii ahayd adiga dhalinyaro gaaraysa ilaa 5 qofood ayaan maartay barnaamijkii ka dhaadhiciyay niyo maadaama ay jiraan dhibaatooyin badan ee ummadan ay qabaan hay'adihi samafalkana aysan maartay si durba aan u soo gaari kareenin oo baahiyaad qarsan iyo kuwa maartay aanan qarsaneyn bay kala yihiin marka saas darteed in macnaha aan u gurmadno dadkii maartay dhibaataysan sidaas ayaan maartay ku aasaasnay anagoo tiro yar insha Allah waxa gudoomiye waxay sheegtay in 5 qof aad ku aasaasteen aragtida yaa lahaa aragtida ma sha Allah aniga lahaay aniga u soo bandhigay
dad aad isugu dhownahay oo asxaabteyda ah oo qaarkooda jaamacad isla dhameynay ay ahaayeen marka aragtida markaan usoo bandhigay iyagana maasha Allah waa dad maaragtay mutacalimiin oo wax bartay yani way fahmayaan marka iyagana way la qaateen marka sidii maaragtay ururkii magaciisii iyo wixii aan u fariisanay aan ku soo saarnay sidii maaragtay hawsha ku bilaabatay alxamdulillah ilaa ay hadeertaan way socotaa maasha Allah waa tahay 2014 waa waqti dheer iminkana 2021 la joogaa tirada aad ku aasaasteen maadaama 5 qof uu ahaa iminku 2021 ururka xubnihiisa imise ay gaarayaan maasha Allah alxamdulillah hadeertaan ururka xubnihiisa ilaa iyo maaragtay waxaan gaaraynaa ilaa 15 ayaan maaragtay hadda gaaraynaa waxa waaye in badan culaysaad badan ayaa iska jira waa dareemi kartaa marka yani dhaqaalo xumo iyo ay meesha imaato waata adoo maas dhaqaalaha waa u maanina marka 15 hadii ma kamaraysin waata Ali Xasan wax walba markii la sameynayo waa la iskaga imaadaa waa laga fadhiistaa afkaaraha iyo aragtidana waa la wadaagaa adigu waxa tahay gudoomiyaha tahay gudoomiyaha ururka ku doortay misaada isku dooratay maasha Allah aad u maasantahay maxamedow yani qof isaga la is doortay waxa waay horta ma shaqeynayaba maasha Allah markii aan kulanay aan wada fariisanay barnaamijka aan maaragtay u soo bandhigay kadib waxa la sameeyay codeena la sameeyay waxa la yiriyaa xoogo yani ugu roon bulshada xageeda oo civil society-ga iyo maaragtay bulshada xiriirkooda markaas maaragtay tartan u galnay alxamdulillah aniga ku soo baxay anay doorteen waxay yiraahdeen maadaama adiga iyo araadi ra'yiga wixii dhan aad keentay haddana maasha Allah tartan baa lagu gelinayaa marka tartankii aan ku soo baxay alxamdulillah maxaa yeelay qofka niyad saafiya uu leeyahay Allah subhanahu wa ta'ala mar walba isaga maartay dariiqa saxda ku toosinayo marka saas darteeda macnaha gadoomiyii aniga leegu doortay maasha Allah ilaa ay hadeertaan waxa waaye waa way socotaa hawsha alxamdulillah marna ma hakanin waa tahay waqti loo doortay ilaa iminka doorasho kale miyaad gasheen mas'uuliyadda gudoomiyaha mar kale aan doorasho la isugu imaaday adiga 2 sano kadib macnaha doorasho la sameeyaa hadana mar kale aniga ku soo baxay hadana doorashadii oo la sameeyay markay arkeen in yani qaabkan u shaqeynayo iyo dulqaadkayga iyo samirkayga mar kale aniga hadana la igu soo celiyay marka sidii aan maartay maasha Allah aan ku sii wadaa aad ku sii wadaa waa tahay bagciya la sameeyay xubniya la sameeyay adiga gudoomiyaha 2014 la aasaasay waan filayaa daawadayaasha intaas inay nala jaan qaadeen waxaan u maanaynaa sida magac ururka uu yahayba waxaad qaateen samafal ayaa qaateen samafalna qof walba markii durbaba uu maqlo waxa ku soo dhacaysa dad la caawinayo dad la gacan qabanayo dad tabaalaysan dad liita dad buko dad intaba caawinaad kala duwan u baahan intii ururkan uu dhisnaa ilaa iminka maxaad qabateen maasha Allah maxamedow aad iyo aad ayaad u maasantahay adiga iyo daawadayaasha ururkan waxaa la aasaasay 14kii ilaa hadeertaan waxyaabaha ururkan uu qabtay lama soo koobi karo anagoo aanan ahayn yani dad maaragtay oo dad fangareynayo oo as voluntary ahaan u shaqeynayno ayaa haddana waxaan maaragtay yani u istaagnay wixii ay qaban lahaayeen hay-adaha caalamiga ay qaban lahaayeen tusaale ahaan haddaan kaaga soo qabto 15kii oo kale maasha Allah waxaa cudurro baahan ay ka dhacay deegaan ka tirsan maaragtay Shabeellaha Hoose oo lagu magacaabo Dhanaane cudur shuban biyood ayaa meeshaasi yani ka qarxay meeshana meel aan MCH xataa ku yaala ma ahan isbitaal iska wadaayay qofka intii la soo wado oo wadada uu soo socdo maaragtay fuuqbax u dhimanaya marka alxamdulillah faleebooyin iyo cirbado iyo wax baan maaragtay u qaadnay alxamdulillah kadib markaan meesha geynay waxay u baahdeen yani dhakhtarkii maxaa dadkii dad oo aqoon leh ma ahan meel iskuul oo maaragtay yani wax lagu baranayo ama caafimaad lagu baranayo male xarun caafimaad oo maaragtay dadkii maaragtay helbi garaysa ama keer garaysa meesha ma yaalo marka saas darteeda yani haddana waxaan ugu sii darnay in aan ku fangareeno qof yani maaragtay caafimaadka yaqaana ama dhakhtar ah inaan meesha u dirno oo sidii maxaa la dhihi jiray yani dadkii oo u samata bixiyo alxamdulillah waana lagu guuleystay muddadaas oo dhakhtarka meesha joogay
ugu yaraan dad gaarahayo 20 iyo 30 qofood ayuu maartay يعني maartay shuban biyoodkii uu ka daaweeyay alxamdulilah lillahi alxamd walman bacdayn haddana maartay tuulo oo tuulooyinka ka mid ah iyadana dhanka iyo shabeellaha dhexe ayaa waxaa dhacday in macnaha waxaa laga soo sheegay iyagana inaysan waxbarasho iyo waxyaabahaas dhan uusan maartay aanan lahayn waxay ahayd maartay 16kii ahayd 16kii 2016kii marka waxaan u sameynay yani lacagaha inta isku dardarnay dhalinyaradeena oo yareed oo markaas oo 5 qofood gaaraysay bishii $5 ayaan inta iska qaadno aan isku aruurino $5 isku darno ayaa maxaa la jiray waxaan gadaynaa buwaagtii haddana mar kale wax baan iska aruurinayna sabuuradihii iyo wixii idan kadib sidii aan macnaha maartay macallimiin meesha ugu qabanayna oo deegaanka ah oo far Soomaaliga iyo xisaabtii meeshii yani ku bara marka alxamdulillah iyagana waa lagu nimcoobay hadeertaan waa dad maxaa la jiray wax qoraayo waxna aqrinayo isla tuulo kale iyadana maartay shabeellaha hoose sidoo kale waxbarasho daro oo sidaas maartay loogu soo sheegaa jirtay iyadana ardaydu waan farxad gelinay agabkii waxbarashada iyo macallimiintoodii iyo wixii oo dhan maartay meesha ka bixinay ilaa ay ka bartaan gacanan ku heyno bil walba maartay anaga jeebkeena ka bixinayni min $5 iska qaadinay shanteeni dhalinyaro marka wax qabadka haddaan u soo laabano dhanka Muqdisho kale adiga maartay 17kii iyo 18kii inta u dhaxayso 2017 18 waxaa noola soo wargeliyay caruur gaarayso 10 anu gaarayso oo agoon ah 10 gaaran agoon waay hooyadoodana asaaya u saaran ilaahay kuma darnaade iyaga laba habeen iyo laba maalin aan maartay wax cunin waxna cabin waa u tagnay oo waa kormeernay waxaan aragnay aad u dhibaataysan yihiin markaasaan inta ururkii macnaha isugu wacay ayaan wax maartay ka aruurinay idan kadib sidii macnaha caruurtii bal yani waxay cuni lahaayeen iyo waxay maartay aan u soo adeegnay alxamdulillah hatta waxay ahaayeen joodari la'aan iyo wax la'aan joodariyaal u soo qaadnay alxamdulillah hadeer waa dad ma sha Allah arinkaas ka sheekeenayo alxamdulillah yani wax tarkaasi ilaadan oo maartay ku amaanaya ururka marka wili waxa kale sii jirto waxyaabo badan oo yani halkaan aan ugu soo koobi karin oo macnaha oo yar yar iyagana way jiraan sidoo kale dad maartay oo naafa ah oo gawaari aan u gadnay oo gawaari gadawaay ayaa jirto oo iska guurguuran jiray gaaridii oo maanta yani ay ku socon lahaayeen ma haystaan sariirta iyo waxay u dhaxeeyeen bis sariirta laga soo dejinaya dhulka la soo maartay soo fariisinay halaas ay markaas gaarigii maartay yani lagu qaadahay ayaan maartay u sameeyay ma sha Allah marka waxyaabahaas iyo waxyaabo kale adiga maxamedow insha Allah halkaan lagu soo koobi karo insha Allah marka waxaan jeclahay in halkaas ku sii okay insha Allah waa tahay dhanaano iyo dabcan iyo shabeellaha dhexe iyo Muqdisho inta shaqooyinka ka qabateen dadkii aad aragteen dhamaan maadaama samafalaatiin caawinaad intaas ka baxsan inuu baahan yihiin sii daranteen maadaama adinku intii dabcan aad samey kartiin aad sameyseen maadaama uu samafalaatiin dadkaas haddii lagu raado falanqeen ama faahfaahin dheeraad ka bixi dad noocay u yeelin wallahi dadka halka degan horta waa dad aad yani maartay siga dhibaataysan oo yani tuuladaas oo kale wax horumar ah oo macnaha yani oo dhankan magaalada ka gaaro ma jirto aad bay ugu fog tahay Muqdisho kale yani iskuul ma laha ilaahay kuma darnaade hal dugsi quraan bisa meeshii ku yaalay isaga naftiisa burbursanaa oo xataa ay naga dalbadeen ay naga codsadeen in dugsiga aan u dhisno anagana waa dareemi kartaa dad yani tiradooda aad u yar tahay haddana oo waxay shaqaystaan $3 maanta day helaan $1 macnaha maartay meel dhigaya waa dareemi kartaa marka anaga waxaan dhahnay dugsigii ma awoodi karno inaan dhisno ase yeeshee waxaan sameynaynaa aan dhahnay in yani geed hoostiisa in macnaha ardaydii bal in wax lagu sii baro intii macaan la jiri yani oo dad kale oo walaalo ah iyagana jecel inay qeyrkaas ama wax ku darsadaan marka waxaan sameynay qeylo dhaamin aan sameynay maanan ku guuleysanin oo yani oo dad kale jaaliyado oo dibadaas jiro inaan u qeylo dhaamino oo si dugsiyadaas maarta loogu dhisi lahaa
marka iyadana maysan suurtagelin marka sidaa bay ku dhacday baahiyaha way iska badan yihiin maasha Allah waxay u baahan yihiin MCH oo kale u baahan yihiin waxay u baahan yihiin maxaa la dhihi jiray yani goob waxbarasho oo weyn oo maasha Allah ciyaalkii primary iyo ay ka bartaan oo u baahan yihiin marka waxaan rajeynayaa kulley in mustaqbalka markii yani warkeena ama la maqlo in yani maaragtay arrintaasi nagala saacidi doono ama nagula buushgareyn doono si aan yani baahiyadaasi insha Allah wax ka mid ah ugu dabooli lahayn insha Allah halkee xafiisni ah wallahi xafiis yani hadda oo gaar ah anaga aan leenahay ma jirto laakiin maxaa la dhihi jiray iskuulkan oo يعني قيبنا علم لوجو دقايو وقتنا محل ديجري أو لوجو شقي بالشدة سكول كان بريفت كا يعني قيبنا ما رتي وحال لوجو دقا عرورة لوجو فائدية سي فلنتريا أيا لوجو فائدية ما شاء الله وحكمتي هذا وحيابي ما رتي أي قبتين محل ديجري أوروكا حقبت كيسي أو كمتي هاي سكول كاني عرورة سي فلنتريا أيا ما رتي يعني وحكو برنا صوماليكا يا إنجليش كان كبرنا سي فلنتريا wax lacagaad oo laga qaadana ma jirto marka qaybna waxa waaye xafiis ahaan oo ugu shaqeeya maadaama aanan hadda xafiis u gooni ah ururka aanan lahayn dhaqaale xumo awgeeda ama dhaqaale xumo badan ama aad u baasan ay jirto maxaa yeelay anaga meelaan ku tiirsanaha malan Allah subxaanahu wa tacaala ayaan ku tiirsanaha oo kaliya mar walba jeebkeenaan galnaa haddii aan u baahano inaan kulamo ama meelo ka qayb galno ama meeshii la tegaayo nafteeda waxay u baahan tahay transportation marmar waxaa dhacdaba in transportationkii la isweydiiyo wareedho ma haysaa adi ma haysaa la yiraahdo oo xataa iska lugeyno sometimes dhacayso anagoo dad diyaar rabna inaan saacidno haddana aan sii lugeyno marka maxaa yeelay mar walba baahidaada maaragtay lama fiiriye baahida walaalkaaga ayaa la fiiriyaa oo waxa kan kaa hooseeya fiiriyo dhahay rasuulka sallallahu alayhi wasallam calayhi ha fiirin kan kaa sareeya ha fiirin marka sidaas maaragtay problemkaas dartiisa ayaa wuxuu sababay in yani inta si ku meel gaar ahaan aan ugu shaqeyno intaan xafiiska yeelino insha Allah waa tahay gudoomiye Cali Xasan ururada ka jira caasimadda ama kuwa gobolada ka jira ama urur walba oo jira ururada kale ayuu xiriir leeyahay idinku ururkiinaan maadaama dhalinyaro tihiin 15 qof ay tihiin ururada kale ee magaalada ka jira xiriir ma leeyihiin maasha Allah maxamed aad iyo aad u mahadsan tahay horta dadaalo badan ayaan ku bixinay inaan ururadii iyo maaragtay qaarkooda ama hay'adaha qaarkooda aan isku dayno inaan la xiriirno laakiin waxaan u maleysaa arintaas in aysan noo suurtagelin nala xujeeyay waxyaabo badan nagula xujeeyay iska daba wareeg iyo waxa nala geliyay oo maaragtay marka waxaan dareena marka culays yani oo xagga marka waxaan door bidnay bal in anaga nafteena aan hay'adii isku naqano maanta $3 adiga ay haysid oo aad maarta $1 ka keentid ninkan wuxuu haay isna wax ka keeno wixii aan isku darno qofkii walaal oo maanta daran oo maartay oo abaadkiisa ama dhibaatadiisa ama baahidiisa ay yani ay over tahay inaan maasha Allah u tagno sida tusaale ahaan dad badan waxaan aragnay oo adaati maartay hadalkan ku soo qaban dad badan waxaan aragnay wallahi alcadiim $100 u dhibaateysna $100 oo isbitaal lagu geeyo u dhibaateysna baan aragnay markaas lacag isku darnay waa qabanay familkiisi oo dhahayo anaga isbitaal lacag uma hayno sida darteed inta lagu daaweynaya maxaa ku daaweynaysiin dhakhtar ma tiin idinka waa wadnay isbitaalaan geynay wuxuu ahaa canug oo maasha Allah biyo maartay ku jiray biyihii adiga alxamdulillah waxaan maartay ku baxday ilaa $400 waxaana bixiyeen ururka midnimo maasha Allah ilaahay khayr Allah siiyo wiilkiina maasha Allah dawaa shaqeysanayo aysh ma anaga hay'ad iyo aan dawlad ama maartay hay'ad international maartay AIDS aan waxba u dirsanin ayaa anaga alxamdulillah ilaahay noogu saaciday ilaahay baa noogu saaciday marka taas darteeda maartay kaliftay waxaa ka dhawaajisay ama soo hadal qaaday in ku biirista ururada kale ama xiriir inaad la sameysaan xujooyin adag naga hordhin hadda dad badan dabcan ku daawanaya haddii hal iyo laba aad ku xusto ما شاء الله هذا وما سنتها محمد يعني وحان نقول حجيي يعني إن ميلا أو يعني أو حرمة يميلا اسمارته عن كلنا هاي قبل هذا يميلا سوكله أو إذل أنا جانا دريبي كرتا دلنا يرى أو مركز يعني إسحل قانتي يعني أو جيب كودي وحول بوكبحويو
oo ninka maanta yani baawur raacayo transportation uu u baahan yahay oo aanan loo haynin hadda in macnaha meel oo gobol la geeyo oo intaad ka shaqeeya la yidhaahdo oo waxna aadan qofka aanan u haynin taasi marka waxa waaye yani culays oo macnaha jiray noqotay laakiin haddii aan meel ku tiirsannahay markaasi xarumo badan ayaan yeelan karnaa marka maxamedow taasay ku dhacday waxaan nagula xujeeyey in goboladaasi aan xafiis iyo waxyaabaas aan ku leenahay oo shaqooyinka aan maarata gobolada aan kasoo qaban aan soo bandhigno iyo waxyaabo badan oo maaragtay oo dhanka macnaha maaragtay qarashaad badan u baahan oo kale aan nagula xujeeyey marka saas darteeda yani maaragtay connectionkii oo hay-adaha kale oo noo suurtagel aada u gaabisan iskuulka iminka aan dhex fadhino oo wareysiga toos ugu baxayo oo idinka xarunni ah waxay sheegtay in caruur halkan aada wax ku bartaan oo weliba si bilaasha waxyaabaha bartaan maxaa kamid ah caruurta maasha allah maxamedow waxaa la baraa af soomaaliga oo kale bay-adan aan degannahay inta badan dadkeeda aada isaga liitaan dad aada u liito oo yacni aqoonta iyo maaragtay aanan awood aanan u lahayn ayaa jira marka af soomaaliga iyo xisaabta ayaan ka dhisnaa markaan af soomaaliga iyo xisaabta aan ka dhisno ay bartaan englishaan maarata ugu darnaa kadib markay englishka meel dhexaad ay ka gaaraan oo kale iskuulaadkan waaweyn ayaan maaragtay yani aan geynaa iskuulo aan ku xirannahay oo asxaabnahay aa jirto iskuulkaasaan yani si voluntary ah waxaan dhirahnaa labadan arday ama halkan arday bal waa si voluntary ahaan maaragtay noogu qaabila oo iyagana maarata asxaab baan nahay sidaasay maaragtay noogu yeelaan marka sidaasaan maaragtay wax aan u sameynaa haddii lacalla maaragtay culays kale uu jirana waxaan dhahnaa si discounti ahaan bal qeybna anaga ka dhiibayno qeybna ayaga iska dhiibayo marka nidaamkaas ayaa discount ahaan maaragtay noola sameeyaa marka nidaamkaas wax u kala dibirnaa yani hadda awood aan iskuul weyn aan ku sameyno oo nidaami ah oo hadda ma lihini alxamdulilah marka bareebadkaanan isdhahnay bal inaan ku saacidno ardayda iskuul weyn hadday u baahdaan bal asxaab kale maaragtay iyagana aan codsi u dirsano marka nidaamkaasaan ku shaqeynaa maasha allah markii si loo fiirsho ururada dhammaan dalka ka jira way adag tahay urur inuu jeebkiisu iska wado oo haddana waqti dheer uu shaqeeyo lacagaha markaa isku dardartaan oo ay sheegtay markaad sii fiirisay ma yahay ama ma u eg tahayba wax mustaqbalka idin sii dhaqaajin doona maadaama $1 iyo $2 oo koox idinkan ay ka tirsan aad ka qaadaan in idinka naftigeena aad wax buuran ay nila noqoto dabcan inayna suurgeleen mana suurgelayso siday tahayba marka aragti ahaan lacagaha idinka iska arurinaysa ururkiina in meel dheer aad ku tegi kartaa mustaqbalka ma kula tahay hadaad gacan aada helin maasha allah maxamed aada u mahadsan tahay waxaa waaye horta anaga mar walba waxaan u taagannahay yani baahidaas markaas muuqata sidii yani 50% xataa even lagu xalin lahaa yani ma wada xalin karno baahidaas maarata oo idil oo qofka haysata laakiin bal inay maarata dhiig joojin ahaan wixii ay u noqdaan oo anagana aan isku muujino oo yani dhalinyaro maanta u taagan inay dadkooda horumariyaan aan nahay aan isku muujino halahaasaan u sameynaynaa maayna hadda awood hadda yani qofka baahidiisa idil yani aan ku xalina mayno maxaa yeele qofka markaad rabto inaad baahidiisa xaliso english maamaha englisha waxay tiraahdaa qofka yani maaragtay intaad siin lahayd cunto iyo aad sii lahayd waxaa ka wanaagsan inaad siiso makaalin oo maaragtay badda kalluunkaaga dabto waxa ugu wanaagsan maxaa yeele qofkaas wuu kaa mashquulay soo ma laakiin maanta markii aad siiso beritan uu u baahan yahay beri dambe u baahan yahay waxa waaye maaragtay qofka bini aadinkana calooshiisa yani ma buuxdo ma buuxiso waxaan maaragtay turaab ka ahayn caraab buuxiso marka waxaa aada weli aan sii jeclaan lahayn in yani dadka oo noocaas ah inaan u sameyno shaqooyin awoodiya gaarin mayne in shaqooyin loo sameeyo business loo sameeyo kii badda yaqaano maaragtay maqaalin iyo shabaq iyo shabaakad oo wax ku dabto kalluun ku dabto loo sameeyo kii beeraley ee beertiisa lagu fangareeyo waxaa laysma soo gaari lahayn laakiin hadda sida hay'adaha oo internationalka qaarkood sameeyaan oo kale markii ay duruufo dhibaato adag ee dhacdo kale ayaa waxay keenayaan maxay markaasay maaragtay gargaar keenayaan gargaarkii qofkii waa siisay uu ka dhammaaday haddana weli wuxuu usii baahan yahay gargaar kale usii baahan yahay marka waxaan leeyahay waxaa aada ugu wanaagsan in qofka shaqo abuur loo sameeyo
sidaas aad u wanaagsan maasha allah. gabagabada barnaamijkaan soo gaarnay maadaama aad dooneysaan dad walaalihiina Soomaaliyeed oo tabaaliseen oo caawisaan weli ma la xiriirteen dowlad ama hay-ad intaa la xiriirteen baahidiin ma u bandhigteen si idinkana qarashaadka iyo wax markaas idinka jeebkeena ka baxaya u yaraato horna u socotaan? maasha allah maxamed aad u mahadsan tahay. su-aashaan horena waa kaaga jawaabay saan dareemayo. hay-ado aan la xiriirnay way jiraan. hay-adaha markaad la xiriirtana ma fududa oo waxa waaye ilaa aad ka caajisto ayaa maxaa la dhihi jiray yani lagu meermeerinayaa. dokumentiya keena, dokumentiyada waa geynay, qaabka u shaqaysiin wax dhan waa geynay ilaa ay haddeerna maaragtay xeed wax jawaab cad ah ilaa hadda aan ka haynana ma jirto. waxaan codsanaynaa ka midnimo ahaan ururkani in yani maaragtay ay bulshada Soomaaliyeed iyo beesha caalamka intaba ay maaragtay soo saacidaan. maxaa yeelay anaga waxaan nahay dhalinyaro wax baratay oo maantana ikhtiraacas la imaatay iyagoo aan waxba haysanin oo sabool ah oo maxaa la dhihi jiray maaragtay kisti yaroo maanta ay qaataan kala bar maaragtay raba inay walaalahooda ku saacidaan. marka waxaan leenahay dadka yani ilaahay wax u dhiibay ama wax siiyey inay na soo saacidaan si yani walaalaheena oo aan babixino. maxaa yeelay yani annaga waxaan arkaynaa bulshadii aan ku dhex jirnaa baahiyaadka annaga waa arkaynaa ay qabaan. waxaa jira dad yani guryaha maaragtay xanuunsan oo guryaha ku jiro oo maanta aanan awoodin isbitaal iyo wax maaragtay lacag oo isaga bixiyaan aanan awoodinaa jiro. waxaa jira dad yani maaragtay waxay cunaan aanan haysanin ayaa jiro oo guryaha ku qarsan. marka waxaasoo dhan anaga u jeedno bulshadii aan ku dhex jirnaa. marka waxaan codsanaynaa in anaga yani nala taageero oo investment nagula sameeyo oo nala bushgareeyo kor maaragtay noola qaado si yani walaalahaasi baahida qaba aan insha allahu aan yani u qabtirno. sidaasaan codsan lahayn shaqadiina saas noogu socoto. iyo ururka u jeediin meesha ku shaqeynayo waa meel yani waa iskuul oo private ah waaye xafiis waa. marka in yani xafiis maaragta loo sameeyo qalabyo badan waxaan u baahannahay oo kale kaamirooyin iyo wax baan u baahannahay si aan bulshada ugu bandhigno waxqabadkii maaragta aan sameyn aan bulshada ugu bandhigno iyo waxyaabo kale oo maaragtay yani oo haddeer inta lagu soo koobi karin oo aan u baahannahay anaga inaan bulshadii aan ku horumarino. marka intaas ayaan codsan lahaa insha allah. gudoomiye waqtigaa waan kaaga mahadcelinaya. maasha allah adaa mudan dhammaan muqdisho cable waxaan leeyahay aad iyo aad u mahadsantihiin sida wacan barnaamijkan aad ila soo wadaagtiin insha allah. waa mahadsantahay. waa tahay daawadayaal halkaa waxaan kusoo afmeerayaa barnaamijkii sooyaalka nolosha oo toddobaadkan marti ugu ahaa gudoomiyaha ururka samafalka midnimo cali xasan maxamed oo waa nin dhalinyaraha isla markaasna hadaf dheer leh doonayana inuu dhaqaajiyo ururkan. gudoomiyahana waxyaabo kala duwan oo ururku qabta ayuu noo sharaxay. waan filayaa muddada 30 daqiiqadeed aan isla fadhinay inaad wax badan afkiisa aad ka hesheen. waana nin ay ka go-an tahay in dhalinta Soomaaliyeed iyo dadka baahan iyo dadka jilicsanba inuu adeego isaga iyo kooxda la shaqeysaba. markale waqtigiisa waan ugu mahadcelinayaa. barnaamijkana toddobaadkan daawadayaal waxaa idiin soo saaray oo alaaba aad kaga barateen anigu ah Maxamed Cabdullaahi Jameeka. waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa maada ka gaartay saaxiibkay Cabduqaadir Iska oo xagga farsamada ii gacan siinayay muddada 30 daqiiqo hawada ku jirana ii taagnaa isla markaasna kaamirada qurxoon waqti geliyay. ani isku duuban daawadayaal waxaan idinkaga tegnaa barnaamijka mid lamid ah toddobaadkan xiga iyo sooyaalka nolosha. amaan Allah.